الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أحمد بن حسين بن أحمد رحمه الله: فصل: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل: هذا كنفاصل ومدوح كالصارة. شيخ وحوي رحمه الله: ويخرج من الفرج فرجك وحا كصوبحا ثلاثة دماء سدح ديق با كصوبحا: دم الحيض ديق عاددا والنفاس ديق للمضى والاستحاضة ديق لبرفرنك. صدح ذا ديق با فرجك كصوبحا ويشيخ رحمه الله. كتاب الطهارة بان كسو جرني إن شاء الله عاود درسي ودن بيه كتاب الطهارة ينقاضنا درسي ودن بيه كتاب الطهارة وحي كدن بينا صلاة دي عبادات كلا ينهري يسي قلي دونا إن شاء الله. ماشا شيخ وحكو ختمي كتاب الطهارة وكو قبيه صدح ديق أو قفك الدمر كاكي ماذا يكو قبيه أو الدماء ثلاثة لو ديجا صدح ذا يكو جبي شيخ رحمه الله إيو سيدا محيه الحكام تا كتعلق ديجا صدح ذا ودمر كجار كوا وصدح ديجا ودمر كجار كوا دمر كجار وليهين. شيخ وحمرك ويخرج وحاك صباحا من الفرج xubinka taranka ee dumarka waxaa ka soo baxa ثلاثة دماء saddex dhiig baa ka soo baxa: دم الحيض dhiigga loo yaqaano dhiigga caadada, والنفاس iyo dhiigga la dhaho dhiigga dhalmada, والاستحاضة iyo dhiig la dhaho dhiigga dhabar furanka dumarku ay u yaqaanaan ama dhabar xanuunka. saddexda dhiig baa ka soo baxa. saddexda dhiigba asaga inoo tacriifin doona asaga qeexi doona. فالحيض حيضك وحويري هو الدم وديق الخارج كصوبح من الفرج فرجك كسم فرج المرأة قفك الدمرك حبن كذا ترنك كصوبح على سبيل الصحة سعاف ماض لهنا أما عاف ماض أهنا أوغا صوبح على سبيل الصحة سعاف ماض أنا أوغا صوبح أون حنون أهين يجرأهين من غير سبب الولادة أيضا يسنكين للم أيضا يسنيقا للمكين يسيس كطبيعي الصحة إسكا صبحا. ولونه ديقا مذب كيسو ديقو لله عادة لله مذب كيسا أسودوا ديق مذو محتدم أو كرول ويه ومركو صبحا يقول إلا دريمي لذاع أو حنون وطو حنون له ديقو تلمامي مرك سيوكا لقرتان دمركا ديقا هيا ديقا كسعودا نوع اويا سيوكا لقرتان بو تلمامي ديقا حيث كلو يقانبو تلمامي مذبو كو تلمامي وحويري وديق مذو مركا كوبان شرطي اللبادنا يتلمانتا اللبادنا وديق كليل له كليل ومركو صوبحا يا كليل بالدريمي لذاع وديق حنون وطوي حنون يو وطاو حنون بوليه ومركو قبرنا كصوبحا يا مكي إيمان هايو حنون بيدارنتا. صدح ذات المامات بكو تلمامي سي أصاقا إيو ميتك كلام مستحاضة لو يقانو أما دم الفساد علماء قاري يقانا سي الله كلا صارو كاكل ميدب كيسا كدوان كليل كاسنا ملها حنون كاسنا ملها. كان صدح ذات المامود يشيخ كو قيدي سيد ديغا كليا أساقا لو كلا صارو لأنه متكس أحكام قاربوليه. فالحيض ديغا حيض كالله هو الدم وديغا الخارج كصوبح من الفرج من فرج المرأة قفك دمرك فرجيسا كصوبح على سبيل الصحة سعاف ماض لهنا أوغا صوبح
min gayri sababi alwilaadati asagoo oysan keenin dhalmo ayadoo aysan keenin oo dhalmo aysan sabab ugu noqonin oo dhiiggaa dhiigu dhalmo keenay ma ah walownuhu dhiigga midabkiisu aswadu waa dhiig madow muxtadimun oo kulayl wata ladaacun oo xanuun badan leh weeyaan dhiiggaasi xaydka la dhaho nabiga sal ll slam xadiisa caaisha radia allaahu canha yaa maalin nabiga u imaatay iyadoo wakhtiga xajkana lagu jiray oo dhiiggaas uu ku dhacay noocuu yahay iyo sida xukunkiisuna ay garan weyday nabigu sal slam wuxuu yidhi innamaa haadaa amrun katabahu allahu calaa banaati aadama arrintaasi wuxuu waa arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qoray gabdhaha bani aadamka uu ku qoray weeye wax dhib ana ma laha buu nabiga sal slam waxa xaajigu uu samaynhayo samee xujaajtu waxay samaynhayaan samee hayra allah taduufii bilbeyti laakiin inaadan guriga dawaafin inin dawaafka looma ogolo waanu tegi doonnaayo nabigu sal slam marka xadiidkaasu ku tilmaamay oo waa dhiig iska dabiici oo wax cillo ah iyo waxba toona ku imaan wannifaasu dhiigga dhalmada la dhaho huwa addamu waa dhiigga alkhaariju soo baxaa caqiba alwilaadati dhalista gadaasheeda imaada caqiba alwilaadati dhalmada gadaasheeda dhiigga imaadaba waxaa la dhahaa dhiigu nifaas dhiiggii dhalmada baa la dhahaa magaciisa wannifaasu waddamu waa dhiigga alkhaariju soo baxaa caqiba alwilaadati dhalmada gadaasheeda dhiigga imaada midkaasaa waxaa la dhahaa damu nifaas baa la axkaamtoodu waa isku mid bay culimmada istixaadada iyo xaa'idada iyo damulxayd iyo damu nifaasku isku xugum weeye isku xugum bay leeyihin walistixaadatu istixaadada soomaalidu dhabar furan bay ku fasiraan waxyaabo kalena waa lagu fasiraa damulfasaadna culimmada qaar baa u yaqaana istixaadana waa loo yaqaana kaasi huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxa fii gayri ayaami alxaydi maalmihii xaydka maalmo aan ahayn dhiigga soo baxa wannifaasi iyo maalmihii nifaaska maalmo aan ahayn dhiigga soo baxa baa waxaa la dhahaa damulistixaada baa la dhahaa waa dhiig fasaad iyo dhabar furan oo cillo iyo xanuun baa keenay cillo iyo xanuun iyo yaa keenay walistixaadatu istixaadada iyo dhabar furanku huwa asagu addamu waa dhiigga alkhaariju soo baxa fii gayri ayaami alxaydi maalmihii xaydka maalmo aan ahayn dhiigga soo baxa baa waxaa la istixaada wannifaasi wa fii gayri ayaami nifaasi maalmihii dhiig dhalmada maalmo aan ahayn dhiigga soo baxa baa la istixaado la dhahaa istixaadadu muxuu ku tacriifiyey sheekhu waa dhiig soo baxa maalmihii caadada maalmo aan ahayn waa dhiig soo baxbay maalmihii nifaaska maalmo aan ahayn wakhtigii gabadhu caado ay isku ogeyd wakhti aan ahayn dhiigga imaado wey wakhtigii la yaqaanay oo dhalmada kadib dhiiggu inuu imaado wakhti aan ahayn dhiigga imaada midkaasi waxaa la dhahaa damulistixaada dhiigga dhabar furanka baa la dhahaa wa aqaluhu inta oogu yar wa aqalu lxaydi wa aqalu lxaydi xayd inta oogu yar yowmun waa maalin iyo waleylatun habeen xaydka dhiiggaasi dhiigga caadada la dhaho inta oogu yar oo gabadha uu ku dhici karo yowmun waa maalin waleylatun iyo habeen iyo maalin weeye intaasaa ugu yar maanta inuu ku dhaco berrina uu ka dhammaado halkaa maxaa laga fahmiyey intaas waxaan ahayn dhiig hadduu imaado oo hal saac intuu dhiig imaado haddana uu iska dhammaado dhiiggaasi dhiigga caadada ma ahayn salaadaha dhiiggaasi looga tegayna waa in lasoo qadeeyo oo lala imaado dumarkana waa ku badan tahay marmarka qaar dhiigga noocaasa inuu iska imaado
inuu iska imaado waa ku badan tahay asbaabo fara badan iyo waxyaabo fara badan oo dhakhaatiirtii ay yaqaanaan yaa keena wa aqallu lxaydi xayd inta oogu yar iyo caado inta oogu yar yowmun waa maalin waleylatun iyo habeen habeen iyo maalin baa oogu yar gabadha inay qabto caadada dhiigga uu ku dhaco intaa wixii ka yar caado ma aha muxuu yahay dhiigga magaciisa damul istixaadaa la dhaha ama damul fasaad baa la dhaha labadaa midkaa rabto u bixi damul fasaad waa dhiig fasaad weeye laakiin dhiigga caadada oo salaada looga tegahayey iyo soomka looga tegahayey ma aha wa akaruhu inta oogu badanna oo dhiigga caadada uu gabadha ka socdana 15 yowman waa 15 maalmood weeye 15 yowman 15 maalmood buu ka soconayaa inta badan wa qaalibuhu intiisa qaalibka ahee badanna oo dumarka intooda badan uu ka socdo 6 waa 6 maalmood aw 7 ama 7 maalmood intaasaa qaaliba qaalibku macnihiisu muxuu yahay sida badan inta badan weeye sheekhu wuxuu yihi markaa caado waxaa oogu yar dumarku ay ka socoto maalin iyo habeen baa oogu yar maxaa oogu badan 15 yowma 15 maalmood 15 maalmood marka hadday dhiiggii caadada uu sii socdo dhiiggaasi dhiig caado ma aha damul fasaad weeye salaaddii bay gabadhi tukani sidii istixaadada xukunkeedii oo kale yay iska soo qaadi istixaadada xukunkeedii oo kale iska soo qaadi waxaa qaalib oo dumarku u badan yihiin 6 maalmood inuu dhiigga ka socdo aw 7 ama 7 maalmood inuu dhiiggu ka socday dumarku u badan yihiin intaasoo dhan wax adillo ah iyo wax xadiis ah iyo wax aayad ah midna looma hayo intuu dumarku dhiigga ka socdo wax aayadoo sheegtay ma jirto wax xadiisoo sheegayna ma jirto shareecadu waxay ka aamustay oysan waxba ka sheegin fuqahadu waxay u celiyeen oo ijmaaca curfiga loo celiyey iyo wax la dhoo istiqraa ayma shaaficiya waxay dhaheen daliilkeedu midaan hadda aan sheegayna waxaa weeye daliil la dhaho daliilul istiqraa wax la dhaho oo imaamu shaafici naftiisa yaa istiqraa ku sameeyey dumarka xijaaz ku noolaa yuu istiqraa ku sameeyey istiqraa muxuu yahay macnihiisu waa wax la dhaho cilmi baaris ama aftin baa la dhaha aftin baa laga qaadi gurigana la fiirin waxa dumaroo ku nool yaa la weydiin imisuu idinka socdaa intaa waa la qori guri kalaa la aadi guri kalaa la aadi guri kalaa la aadi magaaladan baa laga tegi magaalo kalaa la tegi imaamu shaafici baa saa sameeyey hadda ogow saa sameeyey makiya madiiniya ardulxijaaz buu ku wareegay ayma shaaficiyaa sheegay dumarka markaas noolaabuu marka la kulmay oo waraystay oo toos buu wax ooga qoray kadib tanaa u soo baxday xukumkan inan xukum baa la dejiyey xukumkan baa u soo baxay oo caadada iyo dhaqanka dumarka yaa arrintaasi loo celiyey sidaa sheekhu uu sheegay hadday sax noqoto istiqraa kaamil baa la dhahaa hadday sax noqon weydana istiqraa naaqis baa la dhahaa waa istiqraa kala dhimanoo wuu jabi istiqruhu waa wuu jabaa oo waxa aad sheegtay wax ka bedelan haddii la helo haddii istiqrihii aad samaysay iyo cilmi baaristii way jabtay leanna waxaa la helay waxyaabo fara badan oo noocaasi ka duwan baa la helay daliilkeedu marka waa midaasi wey intaa wixii ka baxsan waxay u yaqaanaan aima shaaficiya istixaada iyo dhiig fasaad bay u yaqaanaan oo gabadha salaadii yaa laga rabaa وغالبه سيدي سبضنا 6 أو 7 وي وأقل نفاس انت أو ير لحظة والبرقسي كتاب كورم حاكو صمرني مجة سوكمين صمرت مجة هل مرهو بس ياكو صمرت كان معي لحظة البرقسي وإنه قبل ديقا كسعودو وأكثره انت أو بضنا 60 يوما والنحنا مع الموت وغالبه سيدا بدن عان كوي دمر كو بدن يهين 40 يوما و20 مع الموضوع و40 يوما و40 مع الموضوع سيدا دمر كو بدن و40 مع الموت كان واكي هنا الدليل هو استقريه امام الشافعي يا استقراه سميه كو وريغي دمر كدلاي
oo ardul khaliij iyo maxay ahayd ku noolaa waddankaasi buu ku wareegay oo weydiiyey imisuu idinkaga go'a dhiigga nifaaska kanaa u soo baxday marka tanaa u soo baxday wa aqalu nifaasi nifaaska intiisa ugu yar iyo dhiig dhalmada inta u yar laxdatun waa ilbiriqsi wa akharuhu inta u badanna 60 yowman waa 60 maalmood وغالبه انتيس غالب كوي دمر كو بدنيهين 40 يوما و40 مالمود انت كبدن هدي غبد ديق لوو اركو waxa weeyaan dhiigaasi dhiigi nifaaska ma aha dhiig kala way salaadii tukani xadiiska salama radiyallahu anha salama radiyallahu anha yaa laga wariyay dumarkii waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ahaayeen kuwa fariista oo salaada ka istaaga markay dhalaan 40 maalmood bay ka istaagi jireen saasa gaalib ahay waa moogta makka iyo madiina ka waramaysaa النساء في عهد رسول الله انتو نبي نولا صلى الله عليه وسلم دمركي جوغي waxay tiri salaada waxay ka fariisan jireen haday dhalaan 40 maalmood inta wayna ka badan kartaa oo 60 bay noqon kartaa wayna ka yaraan kartaayo laxda bay noqon kartaa ilbiriqsi meeshu marka waxa weeye ciladu maxay tahay xukumku dhiiga intuu socdo un baa lala soconi dumarka qaar oo 40 iska tirsada هدي وحبا كما جير oo ilaa 40 ay dhamaysataba salaatu kan meesho waa dhaqan buu noqday dhaqan 40 ka bay tirsani ama dhiiga ka imaada miyuusa ka imaanay arintaas waa khalad weeye khaladaad waa weyn weeye dadka nooca salaadu ay uga tagtayna waxa waajib inay soo qadeeyaan oo salaadii soo celiyaan laana khalad bay salaadii uga tagtay iyo cilmi la'aan bay uga tagtay waa inay soo celiyaan وهي ديجا لا سocdaan markuu dhago oo dhamaada la socdaan midkan kale oo maxay xayb kana waa saas oo kala sagan 15 bari waa ugu badan ka yarna waa ku dhamaan kara waa in la socdo salaadana kitaabka hore ku soo maray Soomaaliya waqti uu horeeyo oo go'o waa in salaada hore loo galay dib in loo dhiga ma wa aqallu dhuhri طاهر كأنت أوغير أو جبر طاهر نقول كرتو بين حيضتين لما حيض لحظة أنت أوغير 15 يوما وشريطان مع الموضة أوغير وحي جبر طاهر نقول كرتو إنه وحاني عادة محا أوغو بضن شريطان بشهدي لما الله قيبي شريطان عادة وحا أوغو بضن شريطان با أوغو بضن شريطان كا وحي كدن بي عادة معه ساسو ما شريطة وكا وحي كدن بيا إن عادم ما صبا وحي شريطة وكا كدن بيا عادم ما نقول هاي وحا مركا أوغير وحا أوغير انت ظاهر نقول كرتو ظاهر انت نقول كرتو وحا أوغير 15 يوما وأقل ظهري انت أوغير بين حيضتين لما حيض لحظة 15 يوما وعشان يتمنى مع الموت أوغير ولا حد مرها لأكثره انت أبضا ظاهرك انت أبضا حد مرها انت قبل ظاهر نقوليس انت أبضا حد مرها وحال لغا يابا سنضر ظاهر اسكاها طبع ويسان حيد باركين بقى لغا يابا سنضر أيضا أركين إنو كل عانا لغا يابا سنضر انتو كم مغناضو إنو هدن إماضا وصورتقل انت أبضا ولا حد مرها لأكثره انت أبضا وحد يتراء إن محيد ملها 15 هدي عادة قبتي أو بناشو 15 بين نقول كرتا ظاهر أو يراش صمه أو يران بين نقول كرتا هدي هالمارين أما الله مارين هدي عادة قبتين إمسي ظاهرته هالمارين يوم والليلة إمسي ظاهرته هاي سياري الله بعد صمه لحما الموت هدي عادة قبتين إمسي ظاهرته هاي يا أفر يلا بعد أفر يلا بعد هذا تضام العادة لين إمسي طاهر نقولي يا إمسا صدح يلا باطني أفر يلا باطن بأبضا المركة غالبك أنت وين طاهر هاتو أنت هذا طاهر نقول حبا وأقل زمن متك أوير أو تحيض أي حيشو فيه نحديث المرأة قبل دمركها
9 سنين وسقال سنة سقال سنوي أنت أوغو ير أو قبض وكل عكرو أي عادة كل عكرته قبض ير أي كوكان جاري سوي وأقل زمن وقت متك أوغو ير وتحيض أي كحيض كرتو في نحديث المرأة قبض 9 سنين وسقال سنة سقال سنة أوغو يران قبض حيض كل عكرة سقال سنة أيضا جارين هدو ديكي ما عند الشافعية ودم فساد دم فساد وي ودم السحابة صلاة وقت الميسو انت كير هدي الوارك انت كير هدي الوارك والليح ايو تضبا ايو سيديد يهدو كله استقراها لكن وحوغي استقراء ناقص انو يهي علماء قار كتل مامين وحال اوغادي انت اسكيرنا من مركا قار انو قبلها كل عكرو يا اللي اوغادي او تضبا ايو سيديد iyo meelaha ay caadadu ku dhici kartana waa suurtagal laakiin imaam Shaafici ard al-Hijaz dadkii ku noolaa yu qaacidada ku dhisay waxaana ugu badan buu yiri oo gaalib ah inuu gabdhaha xaydku ku dhaco 20 ya gaalib sida ka waramo gaalib hadda waaqic hadii loo laabto waaqica hadii loo laabto oo aftin la weydiiyo gabdhaheena la weydiiyo 20 ba badan miya 20 dhowr guriba hadii la maro waa la ogaaday moogto wax badan dhowr guriba hadii la wax badan waa la ogaaday moogto waa la ogaaday soma istiqru waa noocaas kan fiiri waa dhamaysan istiqra inta badan istiqraa'ul kaamilna waa adag yahay bali Ahmed ibn Hanbal waa inkir waxa la istiqraa kaamil ma jiruwi ummadooda yaa u teekari waxa la wixii dumar adduunka ku nool nin u teekari ma jiro ma jiro waxaan markay istiqraa naaqis bay ku dhisantahay ahkaamtu kulligeedba istiqraa naaqis bay ku dhisantahay amthila farabadan intii la soo ururiyo oo isku nooca ba ahkaam lagu dul dhisi midkaasi baa badan buu yiri waa aqallu zamanin tahiidu fihi almar'atu wa aqallu zamanin waqti mid oo yaro tahiidu fihi ay haysho almar'atu qofka dumarka 9 siniin waa 9 sano wa aqallu alhamli inta oo yar iyo uur 6 ashhurin wa 6 bilood inta ugu yaro gabadhu uur ilma ay caloosheeda ku hayn karto ku dhali karto 6 ashhurin waa 6 bilood way wa aksaru inta ugu badan oo uurka ilmaha uurka lagu wadi karana 4 siniina waa 4 siniina waa 4 sano way wagaalibu inta badanna 9 ashhurin waa 9 bilood tan istiqraabay ku dhisantay iyaduna aayadna waaleed iyo daliil tan daliilna waaleedahay دليل والد وشيخ محيري وأقل الحمل أور أنت أوغير ويقبض كل كرتو 6 أشهر ولح بلود دمر كل إنه ماركتين يا أيه بلي لح بلود ويم سيدا أوغير ويقبض كل كرتو وإنما ما يسترون كو إيمان كرو وأكثره أنت أبضل وإلمها أور كاللغو ذكرنا 4 سنين وأفر سنة قبل الماء والقوة ذكرتها كدي بمركة يطلي أو حاوي يا الماء يو إيمان هيا بعض الروايات وحال وريي رقب الله طلي أيوه الكلام رق الكلام أفر سنة بتشراي موت إمي سوتشرنيك علاش ما يشوفش أيوه الكلام يا والله بقاركو قار ما كيساو صور الشيء با وابودين saa markay u soo baxeen waaba istaagay bina calooshu ugu qaan gaarinink niyarba ma aha waaba istaagay oo nin waxay sheegaan markii uu saa u soo dhashayba waxa weeye wuxuu cayriyayba waxyaalo meelaha taagnaa iyo tuka iyo buu dhagax kula boodayba wuxuu bilaabay dagaal waa nin weyn hadii 4 sano nin jiray miyaa wayna dhacdaba li waa aksaru inta u badan oo ilmaha uurku ku jiri karo 4 siniina waa 4 سنة وغالبه سيدا بدن 9 أشهر و9 أشهر و9 بلود سيدا بدن ومحيد غالب وحلو دليل شدي إلهي سبحانه وتعالى يديس وحمله وفصاله 30 شهرا 30 شهرا آية سلو دليل شدي قبل أن يكون الله كرت اللح بلود حمله الماء أورك أنت لغوضه وفصاله يقولستيس أنت لغوريو 30 شهرا محيطاي وصدن
bilood wey soddon bilood baa laba sano ka jar in ilaahay baa sheegay wafisaaluhu fii caamayni wafisaaluhu gurintiisa ilmaha la guriyo fii caamayni waa laba sano ilmaha laba sano lagu guriyaa soddon bilood bal laba sano ka jar imisa soo hartay 6 bilood baa soo hartay aayaddaa sheegaysa in 6 bilood lagu dhali karo aayaddaaba kuu sheegtay waka ويحرم بالحيض ويحرم وحا حرام نقون هيا بالحيض بسبب الحيض حيض كسببتس وحا حرام كن نقون هيا والنفاس وسبب النفاس يديك الماذا سببتس وحا حرام كن نقون هيا 8 أشياء 6 شيء أحكامتي وقري سمعت حيض كا نفاس كا سببت وحا حرام كن نقون هيا 8 أشياء 6 شيء حرام نقوني الصلاة مدكوبات وصلاة كلماتنا والصوم يا صومك وقراءة القرآن يا قرآن أخرسك ومص المصحف كمصحف كولا قاضي وحمله مصحف كولا تابتي قاضي ديسة ودخول المسجد مساجد كولا قال والطواف يا محي كعبد الوري والوضع يا جماعة والاستمتاع يا وحاوي أن تاب شاء الله تابت ما بين سرة والركبة سيدي شيء حرام وحرام نقريسة قبل السحرين محي الحيض كقبتي حرام كان نقريسة يتين نفاس كلا بضبا ويحرم بالحيض حيض كوحا حرام كوا والنفاسية المضى وحا حرام كوا 8 أشياء 6 شيء حرام كوا سبب الحيض بو حرام كن نقولي مدكو الصلاة صلاة وي والصوم هي صومك انت دليل ومتواتر وي عرضينا كبتين وافر بديه وهذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل وي ما تيدو ويدينيسا أيضا ويديني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان عقلهن ودينهن نبي وحيت ردمرك ناقصات عقل ودين بالغ شيء عقل هذا مح ناقص كدغي دين تودنا وح ناقص كدغي نبي وحي صلى الله عليه وسلم أليس صومها إذا حاضت مركي حيشو لم تصلي بنا تكنين ولم تصم أن سومينين كاسوي نقصان دينه إن أنت نك وتكن هي وأنا سومه هي صومك يا صلاة دوا سو حرام كما هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا حيضان مداسي ونقصان ديني دينته ونقصه كجروي ودينته وحاوي كلا دماناشاه كجرته ويه النبي صلى الله عليه وسلم ومركو حيض كدعو هذه صلاه دي بي كتغي عبادتي بي كتغي نينكو انت واسي وتصومه ان مثال دير يهيب وبدي وقراءه القران قرانك اني اخرسنا قبل حيض كقبتا عاده قبتا ما ديق دلمدا ايضنا وحرام وحرام بي كتahay حديث ابن عمر بالو دليشدي ابن واجه وريه ودليشay مشافعيه لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن قفك حيض كقبي جنوبك من قرآنك وحبا كما آخرنا يا آياتنا ويدليشدي مشافعيه لا يمسه متابط قرآنك إلا المطهرون مطهرين تأتي تاسوا أيضا مدى الضنبوية دليل كذا كاسوا دليل كورو قراءة القرآن كأخرس كيسة وأيضا المصحف كلاقا آخرين مصحف كان الله فينا ولا قباني كور كلاقا آخريه ومسألة خلافية أي مشافعية لكن حديث كاسي يودلي شدين ومصر المصحف مصحف كتابي شدي سنة وحرام وقبل حرام بيكته وحمله قادسة أي قادنا حرام بيكته آيات يودلي شدين لا يمسه متابط مصحفك إلا المطهرون ضدك طهارة قباء ظاهر كامويين قفك لما تابطو مطهرون تصل سوء خلافة علماء قار وحين لهين مطهرون توا مسلمين طورنا وقفك مسلم كا سيدي سوى ما من نجاسوب ورك مصحف كينو قاضي ويبنات علماء قار لهين حديث كلمة ويودلي شافعية الله يمس القرآن قرآن كينو ستابن إلا طاهر قف طهارة قبا مويين إنو قرآنك وسن قفك لا تابن ويودلي شدين وهدي وحيد الحمل هنا محلو ديدي هدي تابشدي اللي ديدي وقعنت صار لو صاروا قايدسيس ومن باب الأولى بينه وساعة دير بعض وضيسا تاسا كسي درام بين أيضا وحرام بينهن ودخول المسجد مساجد كينيك شايضنا حرام بيكتاي بينهن أي مشافعية إنك سو شرط وكحلين وحيدهن أي مشافعية رجل واوي وحيدهن مساجد كينيك شو حلودي هذا كعبسة مساجدك إني نجاسيسو
ونجاس مساجد وسخيسو ومركو وحاوية وقتيضا وحاوية ديق وقصعضو يا الله قالين بيده النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما لقول أبو داود أولي غير كيبا والنبي يقول المساجد كإنه قالوا مساجد قليتان كيس أبنين مهيو حائضة يجون منا أو بنارو ويريون والله شيء حديث كاس وحلو حنباري باليري شوقتان كدير يا الله قالوا يلح شوقته لكن إذا سوق شو واحد ما ملا هبا يدهن هدين كبقينين إني مساجد كوسخيس أي مشافعية يا سيدا كقيدين حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ودري شدين وعائشة ودر صدي سجايد مساجد كتالي عائشة أوري مساجد كسجايد يسوقات حيضان قبابة يتري النبي وحيضان هيبة يتري عائشة نبي وحوي صلى الله عليه وسلم حيض كاذو قعنت هذا كمية اللي أوري مساجد يسوقات سجايد كنت كذا ويسوقات ضي يا علماء دول المركب وحاوي إن يجري كرتبة حديث كاس اللي فهم مساجد لكن محل الديدية هي هذا كعبسطه إن مساجد إن تشاس كجرت والطواف أصغنا وحاويا وحرام وحديث كيبا دليل هذا عن صومرنا طوافك النبي صلى الله عليه وسلم عايشة وحجك وديب وماضي ويسمو وماضي وحوي أرنتني وارثك عادي وإلهي باكو قري دمرك بني آدم بالغو قري وحكسو حاجك وسمين هي سمين لكن محوي الله تضوفي بالبيتين كعبة طواف ترى الحديث كاس إليه هايو والإسلوء قليه هي والوضع وضعه أصغر وحرام يا جماعة يا قبل أيضا وقت ياسي كتشرته إن محيا لو الموضوع لو تغو أيضا وحرام إلهي سبحانه وتعالى وآيات كشيغ أيضا وكحرمي فاعتزلوا النساء في المحيض إلهي سبحانه وتعالى وعيري دمرك كفو هذا مركا أي حيد كقبال مداسنا ومسألة صح إجماع الموضوع يسلوء قلي وقت أنا لو دواكن والاستمتاع إن لقتها تابتنا وحرام قبل لقتها تابتنا ولقل مباشرة فيما بين السرة حدونت إيه إنت ودحيسا والركبة إيه تشلبه أما لويه إيه حدونت إنت ودحيسا إنت إن لقتها تابت أيضنا وحرام هذي حائضتها حائض هذيتها أما النفاس أي قبته لما قالوا وحاوية والاستمتاع إن لقتها تابته ولقى راحيسنا وحرام ولما قالوا ما بين السرة حدونت انت ودحيسا iyo والركبة لويها يجلبها انت ودحيس انت ان laga taabto ayaduna waxay dhaheen waa xaraam bay dhaheen oo lama ogolo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam baa daliil waa Abdullah ibn waxaa xadiiska Abdullah ibn Sa'd radiyallahu anhu nibaa weydiiyay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa iga banaan duma xaaskayga maalmaha ay caadada qabto maxaa iga banaan buu yiri nabiga weydiiyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sallallahu laka waxa ku sugnaaday ma fawqa al-izari hoosguntiga inta ka koreysa hoosguntiga marada hoosta lagu xirto inta ka koreysa ku banaan inta ka hooseysana maya xadiiskaas ay u daliishadeen nifaaskana waxa way ijmaac bay dhaheen oo adilada حيدك لو دليشدو دنبا waxa loo daliishadaa nafteeda istixaadada waxaan dhihi lahay adilada xaydka loo daliishado nafteeda nifaaskana waa loo daliishadaa oo culimada shaafiiciyada labadaasi isku mid bay u qabaan oo inay isku nooc yihiin oo isku adilo yihiin ka nafteeda ba midii maxay nifaaskana xadiiska naftiisa ya daliil oo culimadu u daliishadeen ويحرم على الجنوب كان جنابه قبنا وحا حرام كا 5 أشياء 5 شيء حرام كا جنابه قفك قبا او وحاويا منيدو اي كيماتي اما ركها هذا اما دمرها هذه اما منيدو هكاغا يماتو معاشره هكاغا يماتو اما غيرك هكاغا يماتو جنابه هدو قبو 5 شيء حرام كا ميدكو الصلاه صلاه حرام كا صلاه حرام بي كتو انو تكدو وصلاه تكدو لما اوغلو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسا لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله إله ما أقبل أما لا تقبل صلاة ما أقبل بغير طهور طهارة الآن وهدي وطهارة الآن وحدث أكبر يا بكر صلاة لك أقبل ما هيو إليه هذا الكيسا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل
inigoo janaabo qabtana inigoo janaabo qabana salaada ha u dhowaanina haddee meeshan waxaa la leeyahay ha u dhowaanina salaadii ma ahee mawaadicu salaati salaada meelaheeda ha u dhowaanina oo masaajida salaada xaaraan bay ka tahay wa qiraa'atu lqur'aani qur'aan inuu akhriyana xaaraan bay ka tahay wamasu lmusxafi musxafka inuu taabtana xaaraan bay ka tahay waxabluhu inuu qaadana xaaraan bay ka tahay waawaafu inuu dawaafo kacbadana xaaraan bay ka tahay wallubsu fi lmasjidi masaajidka inuu ku nagaado ayaduna xaaraan bay ka tahay intaasoo dhanna waxay u deliishadeen cumuumiyaadkii bay u deliishadeen aan soo marnay oo tii xaa'idadahi loo deliishaday yay u deliishadeen oo qiraa'ada qur-aanka la akhriyo laa yamasuhu ila almudaharuuna bay u deliishadeen iyo qur-aanka ma taabto qof aan daahir ahayn iyo adilo caamay u deliishadeen waana masale khilaafi culimmadu isku khilaafsan yihiin oo camalu saxaaba haddii loo noqdo waxyaabo badan baa la arkay oo saxaabo qur-aankii akhrinaya yaa la arkay in la akhriya waxaa weeyaan ayaduna waa masale khilaafiya laakiin shaaficiyadu ma ogolo musxafka taabashadiisana waa tii hore iyo adiladii caamka ahayd bay u deliishadeen qaadistiisana sidoo kale dawaafkuna xadiidka nabigu uu yidhi sal slam dawaafku waa salaad oo kale yay u deliishadeen dawaafku waa salaad oo kale laakiin waxaa la baneeyey in la hadla baa la baneeyey leanna salaada hadalka lama ogolee dawaafku nabigu wuxuu waa salaad oo kale haddii salaad oo kale hadduu yahay dawaafka kacbada la dawaaf hadduu salaad oo kale yahay salaad haddii waxaan hadda soo sheegnay inaan la ogolayn inuu qofku uu tukado asagoo janaabo qaba taasna waxaa weeyaan bayna iyaduna salaad oo kale weeye xadiiskaasay u deliishadeen in la dawaafo lama ogolo oo u dawaafo bay dhaheen wallubsu fi lmasjidi masaajidka inuu ku dhex nagaado oo muddo badan fadhiyana ayaduna lama ogola bay dhaheen oo middaasi ayaguna cayma shaaficiya way diideen masaajidka ta'aduban si looga adabsado masaajidka looga edabsado inuu qofku saacado dheer dhex joogo asagoo masaajidka asagoo janaabo qaba yaa la diiday laakiin gabadhi maxaa loo diiday inay soo gashaba inaan asaga haddee waxaa weye inuu nijaaseeyo lagama baqahayo ayada laakiin maxaa laga baqaya inay nijaasayso meeshan asaga maxaa loogu diidan yahay saacadaha badan baa la diidan yahay oo beytka ilaahay la dhex fadhiyo dahaaro la'aan wayaxrumu cala almuxdisi midka muxdiska ah oy weysadu ka jabtay xadas asqar ninka qaba alaaatu ashyaa'a saddex shay baa asagu xaaraamka ah xadasul akbarkii ka hor u ahaa oo janaabadii iyo wixii la mid ah xadas akbar wuu qabay midkaasi midkana xadas asqara buu qabaa oo weysadunbaa ka jabanay laakiin janaabo ma qabo asalaatu baa xaaraamka wadawaafu dawaafkiina xaaraan buu ka yahay wamasu lmusxafi musxafka oo la taabtana xaaraan buu ka yahay waxabluhu in la qaado musxafkana oo uu xambaaro oo wada asaguna xaaraan buu ka yahay wayaxrumu cala almuxdisi midkay weysadu ka jaban tahay waxaa xaaraam ka ah alaaatu ashyaa saddex shay baa xaaraamkaa midkaan weysada qabin asalaatu baa xaaraamka ah taa waa lisla ogol yahay oo qof aan daahir ahayn haddee inuu tukado lama ogolo wadawaafuna xadiiska haddaan soo maraynay bay u deliishadeen oo leeyi dawaafku waa salaada oo kale haddii salaad aan weyse lahayn lama ogolo dawaaf aan weyse lahaynna lama ogolay dhaheen wamasul musxafna midka horey raaciyeen oo taabashada musxafkan ma taabto ilaa daahirun xadiiskaa bay u deliishadeen oo dahaarada laga daahir yahay xadaska asqarkaa iyo xadaska akbarkaa labaduba isku meel bay mariyeen oo waxay dhaheen dahaarada waxaa laga wadaa in daahir laga noqdo xadaskii weynaa iyo midkii yaraa labadaba waxabluhuuna kaa horeba haddii taabashadiisa la diiday qaaditaankiisana waa min baabi alwlaa waaba ka sii daran tahay bay dhaheen kitaabu salaati hada wabillahi towfiiq sal allahuma calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahu aclam halkaa salaadaha iskaga joogo insha allah aan ka bilowno isbuuca soo socdo salaada